الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا من الله بسكله، لا يركون الله بسكله، أيود دون الله بسكله، سيدي دون ياله، كود دون إسرائيل، كود دون الدنيا، الله بعود بسكله. أدونه سين عيدمان سين لا أدونه مع ابنهم. وحكسر عسنا إيمانك من هكذا دي بسير ويسان غير برعون غير تقدير غير براء. وحكسر عسنا من هكذا دي بسير ويسان waxaan aad iyo aad idinka mahadcelinayaa soo dhoweynta aad halkan igu soo dhoweyseen. soo dhoweyntaas oo muuqaalkeedu ka tarjumayo inta ay leeg tahay, heerka ay leeg tahay, darajada ay tahay. aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada oo aan magacaabi karin mid qof iyo dhinac iyo hay-ad dadkii reer Burco ayaa halkan igu soo dhoweynaya. waad mahadsantihiin dhammaantiin, waad mahadsantihiin. habeen ay khamiisi soo gelayso maanta oo kalena ay 17 bisha afraad ahay oo ay noqonayso 18 bisha afraad 2019 ayaa wadadan horteena laygu qaaday gaari anigoo ka tiiradaysan. waxaanan soo noqday anigoo gacmaha taagaya maanta. gaari baan saarnaa, waan xidhxidhnaa, keligay baana lay watay. maantana waxaa weeye reer Burco oo dhan bay soo baxay. waa guul xagga markii ugu dambaysay magaalada Burco aan si nabada ku dhex maro waan xasuusinayaa waxay ahayd 13 bishii 12aad 2017 markaas ay ugu dambaysay si nabada ku dhex maro. maantana ku xigta oo ay tahay bishu 12 bisha lixaad 2020 fadligaana allah baal. jeel baad igu ogeydeen, xabsi baad igu ogeydeen aan muddo ku jiray. xabsiga waxaan kala soo baxay faa'iidooyin aad u ballaaran oo aan idiin sheegi doonaan kala soo baxay. waana dareemi kartaan faa'iidooyinkaan kala soo baxay. inta aydan ogeyna waan idiin sheegi doonaa. marka xabsiga kuma aan soo khasaarin, faa'iidooyin baan kala soo baxay. faa'iidooyinka ugu yar ee aan kala soo baxay inaan dhigane ay dadku ka faa'iidaysan doonaan ku dhex xallifay jeelka. inta ugu yar waa intaas. عادل بعد شيء قضى شيء. عادل عبد الملك شيخ موسى عرضون. عادل وحنقول بحيي إنه عدالة سمعيه. إنه عدالة كل غير كي أيان نقول بحيي عادل. شيء بين ولد قوى عدالة. كانوا دون إنه قوى عدالة. ما أنت وما نفرح هذا. waxaan idin kula dardaarmayaa reer Burco reer Togdheer. waxaan idin kula dardaarmayaa axad ama qof dhexdiina ayaan lagu dulmin. haddii qofka aynu ogolaano in dhexdeena lagu dulmo berri ka maalin aday ku imanaysa. aynu garab isi siino, aynu dhammaanteen aynu xaqa garab siino. qofka iyo qabiilkiisa iyo midabkiisa iyo cidduu yahay ha u eegine وقف كان حق ما كنت هاجي مسك متاجنا قف كان ملا ظلمي مثال لما ظلمين
weligiin aynu dhammaanteen qofka inaga mid ah aynu xumaayay garab siino haddii aynu garab siin weyno berri waxa weeye adiga weyn haddii maanta aanad adiga ahayn ma berri baa tayaa xiga weyn adaa xiga waxaan u mahad celinayaa waxaad halkan ku jooga sidaad u soo baxdeen waxaad siin dadkii intii aan xidhnaa garabka i siinayey mid duceeya mid wax qora mid si uniigu heliya aanan ogayn ilaahay baa og ilaahay khayr isku abaalmariya ilaahay khayr isku abaalmariya waan idin mahad celinaya maalintii aan ka soo baxay ee sharajoogga laygu waraystay waa nigu erayidhi wixii igu dhacay u qaadi maayo cidna kula xisaabtami maayo sidanaa laygu sameeyey oo waan kugula xisaabtamayaa ama colaad baan kugu samaynayaa ama waxa weeye waan kaa argoosanayaa waxa weeye boggaa waan xidhay waxaanan furay bog cusub cutub cusub oo ka bilaabmaya taariikhdii aan soo baxay wixii waxaa ka dambeeya ayuun baynu ku xisaabtamaynaa aynu dhammaanteen tale iyo toosi ku yeelanayno micnaheedu waxa weeye aamusi mayno ka aamusi mayno xaqa ka aamusi mayno weligaya ka aamusi mayno xaqii ka aamusi mayno se waxa weeye micnihii wixii dhacay ku xisaabtami mayno sidii nebi yuusuf calayhi salaam aanu walaaladii ula xisaabtamin ayaan aniguna go'aansaday inaanan ugula xisaabtamin dadku waa walaaladii intaasaan ku soo gebagabaynayaa dhallinyarada munaasabadan qabanqaabisay iyo dadka is abaabulay mar labaad jazaakum allahu khayr waxaynu yeelan doonaa munaasabado iyo madalo kale magaaladeedii baan idinka tegi maaye munaasabado iyo goobo kale oo aynu isku xog waraysanno ayaa jiraya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu